wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 10ka bisha 10 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah xasan sheekh maxamuud sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo muddo ku xayirnaa garoonka aadan cadde oo saacado ka hor loo ogolaaday inay u duulaan magaalada Kismaayo halkaasina si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland oo u hanjabay madaxweyne Farmaajo safar degdeg ahna maanta ku tagay magaalada Kismaayo ciidamada Kenya oo la wareegay amniga madaxweynayaasha hore iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee maanta gaaray magaalada Kismaayo Ahmed Madoobe oo guul lama filaan ah ka gaaray dawladda dhexe Umar Finish oo soo farageliyay khilaafka madaxweyne Farmaajo Xasan Sheekh iyo waliba Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweyne Farmaajo oo Ahmed Madoobe kaga dacwoonaya Ethiopia iyo laba arin oo ay sameysay dawladda federaalka oo sharci ka dhigaya doorashada Ahmed Madoobe intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo fidsan waxaa maanta magaalada Kismaayo gaaray Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif iyo waliba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhamaantood ah mucaaradka dawladda federaalka kuwaas oo muddo ku xayirnaa magaalada Muqdisho wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhow ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyagoona gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wafdiga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ku jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo kamid ah xisbiga uu hogaamiyo ee nabadda iyo horumarka ee UPD wafdigan ayaa waxay ka qayb gali doonaan caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Madoobe oo dhawaan ka dhacaysa magaalada Kismaayo dhinaca kalena isla maanta waxaa magaalada Kismaayo gaaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno ka tirsan labada xisbi oo kala hogaaminayaan magaalada Kismaayo waxaa saakay isna gaaray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole waxaana horay markaasi ugu sugnaa magaalada Kismaayo madaxweynayaashii hore Galmudug iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan dhinaca kalena madaxweynaha Puntland ayaa u hanjabay madaxweyne Farmaajo safar degdeg ahna maanta ku gaaray magaalada Kismaayo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa daqiiqado ka hor ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo wafdigan oo saaki ka soo duulay magaalada Garowe ayaa saarnaa diyaaradii dhawaan la sheegay inay soo iibsatay Jubbaland diyaaradan oo si toos ah uga duushay magaalada Garowe caasimada Jubbaland ayaa soo marin magaalada Muqdisho taasoo noqonaysa markii labaad oo la jabiyay amarka dawladda Soomaaliya ee ahaa in diyaaradaha aadaya Kismaayo ay soo maraan magaalada Muqdisho wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isagoo marti loo yahay arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dawladda Soomaaliya xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha aada magaalada Kismaayo waxaana magaalada Kismaayo lagu wadaa inay dhawaan ka dhacdo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaa hore magaalada Kismaayo uga degay wafdi ay kamid ahaayeen madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed sidoo kale waxaa maanta magaalada Kismaayo gaaray madaxweynayaasha hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno xildhibaano oo ay kala hogaaminayaan labadii toddobaad ee u dambeysay ayaa waxaa jiray cadaadis siyaasadeed oo madaxdii hore iyo xisbiyada siyaasadda wadeen kadib shirar ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga soo horjeeday tallaabada dawladda federaalka ay ku xayirtay safarkii madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed geesta kalena ciidamada Kenya ayaa la wareegay amniga madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee gaaray magaalada Kismaayo ciidamada Kenya ee qaybta ka ah kuwa Amisom ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa si rasmi ah u la wareegay amniga madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar kamid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee maanta gaaray magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubbaland ayaa la soo sheegay in saraakiisha Amisom oo ku wargeliyay in si aad loo sugo amniga wafuudda ka qayb galaysa xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Jubbaland ee dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana uu sheegay in si gaar ah loo ilaaliyo ammaanka madaxweynayaasha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba Sheekh Shariif Sheekh Ahmed
xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa la dejiyey xarunta ciidamada amisom oo ku taala magaalada kismaayo halkaas oo amnigooda si weyn loogu adkeynayo labada mas-uul ayaa waxay ka qaybgalayaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland Axmed Madoobe taas oo lagu wada in maalinta Sabtida ay ka dhacdo magaalada Kismaayo wafuud kala duwan ayaa ku sii qulqulaysa magaalada Kismaayo iyadoo garoonka diyaaradahana laga dareemayo mashquul aad u weyn sidoo kale wariyaal ka kala tagay gobolada dalka ayaa gaaraya magaalada si ay u soo tabiyaan xafladda caleemasaarka isla arimihii Jubbaland ayayna ku guda jirnay Cumar Fanish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa soo farageliyay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo cirka isku sii shareerayay maalmihii ugu dambeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ka dalbaday inuu dhexgalo khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgalay dowladda iyo maamul goboleedka Jubbaland qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay duqa Muqdisho in madaxweynaha uu ka dalbaday inuu ogolaado madaxweynayaashii hore dalka soo maray sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland inay u safraan magaalada Kismaayo isla markaana uu ka aqbalay Cumar Finish ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynuhu ka ogolaaday dalabkiisa isla markaana uu mahad celinayo inuu dhexgalo khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland sidaa daraadeedna la fasaxay duulimaadyadii Kismaayo iyadoo la ilaalinayo xasiloonida iyo wadajirka ummadda wada hadalna laga galo arimaha khilaafka waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo iga ogolaaday inaan dhexgalo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish laba arin oo ay sameysay dowladda federaalka oo sharci ka dhigaya doorashada madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe marka siyaasadda iyo taageero koox meel la iska dhigo ma jiro qof ku doodi kara in doorashada Jubbaland ka dhacday ay ahayd mid boqolkiiba boqol loo maray wada sharci oo hufanaasa ahaatee dowladda federaalka diidmada ay kala hortimid doorashadaasi waa mid aan wax sharci ah ku fadhin haba yaraatee waxaa jira mabda' sharciyeed oo la yiraahdo precedent oo ah in wixii hore loo sharciyeeyay ay sameynayaan principle loo adeegsan karo waxa dib ka dhaca Kismaayo waxaa ka dhacay laba arimood in doorasho natiijadeeda la yaqaan ay ka dhacday oo uusan dhicin tartan xarash iyo madax ah xoogag isu miisaaman aysan ka qayb qaadan ku dar cadaadin iyo boob hadaa doonto laba in dowladda dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha aan laga siin wax kaalina oo maamulka markaasi jira ee Jubbaland ee hadda guusha sheegtay uu iskiisa u maamushay doorashadaasi dowladda dhexe doorashada labadan sifo lehba waa ay aqbashay waxaana ay marxabaysay baydhabo midda ka dhacday waa ay ka foolxumeedkii Kismaayo xarig iyo dhiig fara badan ayaa ku daatay dowladda dhexe waxay ku tilmaamtay doorasho xor iyo xalaal ah Garowe waxaa ka dhacday mid dowladda dhexe loo diiday oo wax kaalin ah ku yeelan hadda dowladdu waa ay ka qayb gashay caleemasaarkii ka dhacay Garowe halkaasi waxa yaala president oo xujo walba oo sharciyadeed oo looga hortagi lahaa Axmed Madoobe ay ku jabinayso halka waxa uu ahaa maadaama dowladda ay ka wareysay inay doorashooyin goboleed soo socdaan in wasaaradda arrimaha gudaha ee habraac wada mid ah ka soo saarto doorashooyinkaasi taasi ma dhicin lagumana celin karo ee waa sideedii ha lagu wada qaato ugu dambeyntiina wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo ayaa u dhoofay dalka Itoobiya isagoona lagu soo waramaya in dowladda Itoobiya uu kaga dacwoonayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya iyadoo wafdiga madaxweynaha aad loogu soo dhaweeyay halkaasi ra'iisul wasaaraha dalka Abiy Ahmed ayaa garoonka diyaaradaha ee Boole ee magaalada Addis Ababa soo dhaweyn heer sare ah ugu sameeyay wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha dalka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa Itoobiya uga qayb galaya shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo maalmaha soo socda ka furmaya dalkaasi isla markaana ay ka qayb gali doonaan madax kala duwan magaalada Addis Ababa ayaa waxaa ku sugan madaxda dalalka Koonfurta Suudaan Kenya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan iyo madax kale madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inuu inta uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa inuu la kulmo madaxda kale ee ka socda wadamada Afrika kana qayb galaya shir madaxeedka urur goboleedka IGAD dowladda Kenya ayaa la filayaa inay la wareegto gudoomiyenimada ururka IGAD waxaana xilkaasi qaban doona madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta isagoo kala wareegaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo xilkaasi haya
guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino waana mahadsantihiin